Golaha dhalinyarada Itoobiya ayaa baaq culus u diray dowladda dalkaasi iyaga oo ka codsaday inay si degdeg ah u badbaadiso 200 oo dhalinyaro oo Itoobiyaan ah oo dowladda Sacuudiga ay ku xukuntay dil toogasho ah. Xukunka ayaa yimid kadib markii maxkamadda Sacuudiga ay sheegeen in dhalinyaradani lagu helay ka ganacsiga daroogo sharci darro ah oo gudaha dalkaasi ah. Tiradani waa midda ugu badan ee hal dal ka soo jeeda oo lagu xukumo dil wadareed gudaha Sacuudiga ah, taasi oo dhalisay cabsi iyo walaac weyn oo ku saabsan xuquuqda muwaadiniinta Itoobiyaanka ah. Golaha dhalinyarada ayaa ku baaqay in dowladda Itoobiya ay si degdeg ah ula fariisato maamulka Sacuudiga in la raadiyo xal diblomaasiyadeed oo lagu badbaadinayo dhalinyarada, in bulshada caalamka laga codsado cadaadis iyo taageero si loo joojiyo fulinta xukunka. Warbixintani ayaa si weyn ugu dhex abuurmatay dood iyo walaac ku saabsan xuquuqda muhaajiriinta iyo cadaaladda maxkamadda Sacuudiga.